CD halkan maanta warkaan sida iyo fariinta noo salaamahay horta waxaanu nahay ciidan nabadoon oo aan cid ku duulay ee dalkiisu ilaashanaya oo wixii ku soo xadgudba iyo wixii fadqaad ka wada qabanaya waxaanu nahay ciidan aan cid weerar ku ahayn waxaanu nahay ciidan nabad soo waday intii uu jiray ilaa maanta la asaasay oo dadkana kala ilaalinaya dalkana ilaalinaya walaalada iska soo horjeedo reer Puntland weerar kuma nihin ma nabcin waan nabad geliynaa iyagana inta leeg baan ka rabnaa waxaanu doonaynaa waxaynu ku ayno ina dhaxtaalo dooda aan waa deegaan reer iyo waa xadka Ingiriiska inta haysta waa intaas inaynu geed hoostii ku xalilay ayna arka iska galayeen iyagana ilaahay inuu galasiyaabaan ka rajeynaya waayo soo baahan sabab kale oo dhamaanta wax hadal lagu dhameyn karo oo geed hoostii lagu dhameyn karo waxay la tahay waa khalday ninka weerar ku galaya shan joor baa waxa ay yimaadeen ninka gobolka ka jimcada raaxaysa iyo iigan iyo Afrika Union shan goor bay diyaaradaha ku dhulmareen xagga Galway ama Galway mareen shantii goor baan nabad wada saxeed afar qodob baan mar walba anoo idinka ka wakiilo ku heshiiyay waa qoon ogol anagu weerar mawlad duulimaad kuma nihin dal kale iyo dad kala toona cid walba nabad baan u wada gudaha nabad ka wada waxaanu heshiis ku nahay iyada oo dalkiis Somaliland caalamka aqoonsanaa ee loo jeedo Somaliland protectorate lixdankii ay waliba qayb ka tahay halka ay walaaladeen laga hor yimaadeen aan joogsano inaan ka wada hadalno waxaan ogolaanay xabad joojin waxaan ogolaanay in maxaabiista la soo bedelo waxaan ogolaanay dadka deegaanka in loo soo daayo waxa la dhinac walba wixii gargaar iyo taakuleyn la siinay dadka barakacayaasha ee abaar waxyeelay 6 bilood nimanka kartaniya Galway saaxiibadeen ayaa arintaasi xaggooda ka dhamaanaa maantada hadda ku dhawaaqana diyaar baan u nahay waayo inagu cidna weerar iyo calal xumo iyo daandaasi ku wada waxaan ku ducaynaynaa oo ku hambalyeynaa oo ku kalsoonahay ina idinku nabad doonaya dalkii daafacaysa oo inta goor la idin soo waran marna inuu xitaa weerar rogaal celina difaacu mooyaane maynaan samayn marna iyagoo diyaar garooyo maynaa difaaca inta weerarka soo qaadan weerarka ku sameeyay akhrinta attack oo suuq mar walba waxaan warnamayaa weerarka nabad gelisaan sabab waxa taas weyn ma jirtay wixii ka dareen difaaca lagu yimaado ilaahay inuu gargaaray inuu istafaa waayo nin qori ku soo cararaya deemaa barka laakiin inagu waxay doodo ku dhamaysanayna dagaal la uma socono dalkayga dhexdiisa aan uga haysataa waa nagu hor joogsateen waa idin fadhina wala xabada ku darsaalaha laga daayay wala farisa badan waa inta qura dadka deegaanka walaaltinimo iyo wada tashi iyo Somaliland oo saan wadna arinta ma socono farinta inuu xasaawata aad iyo aad baan ku mahadnaqaya dadkiina inay jecel yihiin inuu qof walba naftiisa horeeyo xishoodkii afka iyo niyada mooyaane dee waa ogtihiin tii koob caanaha tii la wariyada haduu bixisay kee boqolaal dheeraha la bixiyay dacay la ka dacay tuula Somaliland oo ciidanka qalbiga ku hayn oo waxa la qashay wajho dadkuna waa wada inta insha Allah waxaan ugu ducaynayaa fi aakhirsan ilaahay Allah idin hayo in dhibaatooyinka badan ay qabtaan ilaahay inaynu waartiqaad xalilo inuu soo dejiyo waxaan ku amaanaynaa sabarka oo yarateen بطاقتان ذيك قوسكينو لكن قرن بعد سنة قرن كلهم في السورية هذه الدولة سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدوح وي سفر كاين وقال يم الدمدان سوماليلاند عدو وين مو فري إني سوماليلاند markay qarnada taas ku mid tahay iyadoo reexda ay ka doodo laakiin qaranka iyo hawlihiisa iyo dalka ay midaysan tahay taasi waxay ka liftay dawladda xawar maanta ka dhisanay inay fadhiga kala wado oo wiiga ay 10 cisheen wareegayna laba jeer hadda waxay ka hadleen golahooda dhexe daraato fariistay waxay yiraahdeen wada hadaladii dib Soomaali loogu mideynayay baanu ayaa la ambaqaadaya oo Somaliland waxa loo hadlayaa si Soomaalidii loo mideeyo waxa weeye mar hadii aan gumooyo garad ku kordhay waa mashkalad gumooyo hadaan garad ku kordhay waa mashkalad qolada xamar ku jirtay wasaaradda xamar waxaan leeyahay konton 30 sano oo heegan iyo dagaal iyo muran ahaa mid afeed mid doodeed mid qoriyeed 10 sano halkan hubaysan ahaa iyo 720 sano ay Soomaaliland xor ahayd ninka maanta yiri waxa uu sharayaa inaan soo midayo soo celiya dee aqli male garasho maaha madaxweynahoodu waa hadlayo wuxuu yidhi kolba ninkii Somaliland necba cadowgeeda u tago oo hubiya ka qaata oo dabeetana Soomaaliland googooya
aad baan la yaabay caqli gaabnida ninkaa dhana madaxweynaha waxa uu ka fikirayaa wadadii maxamed siyaad ka fikirayay 1988 maxamed siyaad markuu 1988 markuu halgankii jabhadihii SSDF SNM SPU ummadii isaga ku gadotirada ee markay ka weyday dimuqraadiyadda maxamed siyaad barre qoriga qaadatay min Kismaayo ilaa iyo Zayra ayaa wuxuu yiri waa la igu soo dirayaa Mingisto u tagay markaasuu yiri Mingisto waxa la xadoonta waan ku saxay joodaha iga qabo Mingisto iyo siyaad barre oo adisaba ku wada caawinaya isaga hargeysa burcaka aaday barbara markaasay dalkeeda xoreysay SSDF na waxay ka raacay gaalkacaya iyo boosaaso dalkeeda xoreysay SPU na xamar buu caydid ka bilaabay markaasuu ilaa Kismaayo socday caqli laawe hadaad adigu ogaa wixii dhacay miyaanad cid wareysan ma maanta leedahay Soomaali baan dib u mideynaya Soomaali way midaysan tahay afay ka midaysan tahay diintay ka midaysan tahay dhaqankay ka midaysan tahay wax qabsiga iyo ganacsiga iyo waxbarashada way ka midaysan tahay laakiin talada iyo maamulka iyo gobolnimada ku kala duwan tahay caalamka oo dhan waa cayka marka ma waxaad ku fikiraysaa 30 sano wixii halganaa waxa loo soo maray maanta ka joogtaa riyo koowa inta xamar ku jirta aad waxaan mideynayaa Soomaaliland si aynaan ku kala baxayn oo aynaan ku kala garnaqsanayn oo wixiina gaaray aanaan ka magdhaweedi laga bixinayn oo aynaan ku garrabayn midnimo iska daaya ku aan wixiina gaaray laga magdhaweedi soo marmayno inaan ku leeyno ni waliba taa maqlo talabaad waxa la markaad Kismaayo baydhabo iyo gaalkacay iyo jawhar midaysiya xamar markaas ay wada doonaa horta Soomaaliya kuwa kula jooga meelgeed horta xamar midaa xamar badkii mucaaridka ahaa ku leenaysaa gurihiisii xamar baad garaacaysaa cadow u soo karaysanaysaa kii kula hadla adigoo ajnabi ku ilaaliya abaad soo go'aysaa waxaan leeyahay halka xamar caqli ma jiro inagu dalkeena u dhisanayna horumarkeena ka shaqeynaa HD channel Somaliland kuxidhnow markasta iyo meel kasta joogto hawo HD channel Somaliland fadlan hadii